السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. أرديد هالدور كولج كسر وهذا 10 كيني شناد مادة الكمبيوتر كا مايكروسوفت وورد 2019 10 كيني maanta waxaan ku soo qaadanaynaa waxaan ku guda jirnaa tableskii oo ay maalintii hore 10kii afraad aan ku soo qaadanay insha Allah taala waanu sii wadi doonaa 10kan intii Ilaahay subhanahu wa taala inaga garadsiiyo markasta aad joogtaan waxaan idin leeyahay Ramadan taadin wacnaato 10kan maanta wuxuu ku saabsan yahay taabka la yiraahdo insert tab waxaan soo sheegnay marka tableka aad dhex tagto in halkan ay ku soo biirayaan laba tab oo cusub oo mid layout la yiraahdo mid design la yiraahdo markay ku soo biiraan labadan midba wax buu qabanayaa maanta insha Allah taala waxaan dhigan doonaa qaybta la yiraahdo layout tabka waxa ku jira delete salo delete gareeyo saliskan salo delete gareeyo ama rows-ka ama columns-ka salo delete gareeyo table-ka laftigiisa salo delete gareeyo group-ka la yiraahdo rows and columns group-ka rows and columns-ka la yiraahdo salo soo geliyo row cusub iyo sida loo soo geliyo column cusub iyo sidoo kale sida la isugu furo saliska qaar kamida sida la isugu furo marka step by step inuu dhigan doonaa insha Allah ku soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad 10kii shanaad oo maanta khamiis ay noo bixi doonaa waxaan ugu horeeyay delete wuxuu ka bilaabmaa inaad delete garayso marka hore saliska inaad delete garayso mesela labadan sal ama saddexdan ayaa ay select garaysan waxaan doonayaa inaan delete gareeyo waxaan dooran doonaa design layout tab kadib waxaan ka tagi doonaa delete waxaan dooran doonaa delete salis ka waxa meesha ka bixi doonaa halkan waxa weeye waxay soo bixi doonaa dialog box-kan la yiraahdo delete salis kan waxaan oran doonaa shift salis left saliska kale ee soo haray waxa uu riixdaa dhinaca bidixda shift salis up xagga sare u riix delete entire row oo dhameystiran delete gare delete entire column oo dhameystiran delete gare marka waxaan oran doonaa delete shift salis left oo delete garena waxaad arki doontaa in saliskii kale meesha yaalay dhinaca midigta yaalay inay u baxeen oo loo riixay dhinaca midigta in loo riixay marka halka waxa laga delete gareeyaa salis gaar marka aad doonayso inaad delete gareyso mesela haddii aan kuwan oo kale aan mar labaad delete gareeyo oo saliska taabto waxaan taaban doonaa shift salis up macnaha xagga sare u riix kuwan hoose waxaad arki doontaa in saliskii kale xagga sare ay u kaceen ayaad arki doontaa saliskii kalena meesha waa laga saaray boxes kale sanduuqyadii reeraha kale meesha iyagana waa laga saaray waxaana ugu xiga delete column ka soo loo delete gareeyo mesela halka waxaa noo yaala 4 column oo dheeraad oo columns-koodii kala delete gareynay waan select gareyn doonaa 4 column kadibna delete waan doonaa delete columns-ka iga delete gareey marka saas ay iga baxayaan meesha mar labaad baan soo celiyo adarkiisaan waan select gareeyay waxaan taaban doonaa delete button-ka kadibna waxaan oran doonaa delete columns-ka meesha ka saar haddii aan doonayo row-ga inaan delete gareeyo row-ga markaan doonayo delete gareeyo waan select gareyn doonaa row-ga ama waxaan select gareyn doonaa mid ka mid ah row-ga boxes-ka yar ku jira ayaan select gareyn doonaa dabeetana waxaan dooran doonaa delete rows-ka meesha ka saar marka 4 bay ahaayeen 3 keliyata ayaa soo haray haddii aan doonayo inaan delete gareeyo dhammaan table-kana waxaan dooran doonaa delete table-ka iga saar marka iga delete gareeyo insert waan tagi doonaa mar labaad waxaan tagi doonaa table saan soo gasho table kale marka table baan hadda soo geliyay select gareyn doonaa table-ka si aan u sameeyo all borders aan u sameeyo borders marka size-kii ayaan ka bedelay ama cabirkii baan ka bedelay waxaana ugu xiga arday mar labaad rows and columns-ka see loo soo geliyaa hadaba delete gareynta waa baratay sidee baad soo gelin kartaa marka kuwa cusub oo dheeraad sidee u soo gelin kartaa marka halkan waxaan taaganahay مثلا halka waxa igu qoran 3 ayaa halka igu qoran sawirkiisa ama 13 ayaa halka igu qoran marka haddii aan doonayo arday martuu yeena soo geliyo aan doonayaa marka qaabkan soo geliyo marka isagana halkan ay ku jiraa waan baran doonaa isagana inserting columns balance columns-ka loo soo geliyo laba qaab baa loo soo geliyaa inaad 3-ga bidixdiisa aad soo geliso 1-kiiyo 2-ga aad u dhaxaysiiso iyo inaad halka boxka aad taaganto 3-ga ama right-kiisa aad soo geliso dhinaca midig uu ka raaco marka hadda waxaan doonayaa inaan 3-gan taaganahay liftigiisa aan soo geliyo ama dhinaciisa bidix aan soo geliyo waxaan tagi doonaa layout kadib waxaan dooran doonaa insert left dhinaca bidix soo geliyo marka halkaas uu soo galay halkaas waxaan ku qoran doonaa number 2 ayaan halka ku qoran doonaa marka 1 2 3 halka way dhameystiran yihiin
sidoo kale rowiska halkan 1 baa ii yaala halkan waxa ii yaala marka 3 baa ii yaala iyadana waxaan doonayaa rowiska haddii aad doonayso marka waxaan soo geliyay left baan soo geliyay marka haddii aan doonayo inaan halka number 4 aan soo geliyo oo mesela halka waxa ay qoran 5 right haddaan doonayo soo geliyo 3 gaan taaganahay dhinaca midigna soo geliyana waxaan doonaa insert right dhinaca midig soo geli marka number 4 baan iyadana halka ku qoran doonaa sidoo kale halkan waxa yaala rows baa yaala marka 1 iyo 3 baa ay qoran row 2 baan doonayaa soo geliyo isagana waxaan sameyn doonaa insert above xagga sare soo geli iyo insert below xagga hoose soo geli marka 1 baan taaganahay waxaan doonayaa inaan xaggiisa hoose soo geliyo row cusub marka insert below ayaan oran doonaa hadda halka waxa ay qoran marka number 2 ayaan gashan doonaa sanadii ku weyneeyo oo wada aragtan arday waan select gareyn doonaa kadibna waxaan dooran doonaa home tabka waxaan taagan doonaa inaan farta aan idin soo weyneeyo saad aragtaan halka marka waxaan soo geliyay row 2 ayaan soo geliyay marka halkan kale waxaan taaganahay row 5 baan taaganahay row 5 baan taaganahay haddii aad doonayso inaad soo geliso row 4 oo aad row 5 na taagan tahay waxaad oran doontaa isagana layout baa tagi doontaa waxaad ka dooran doontaa insert above xagga sare soo geli marka 3 iyo 5 waxa u dhaxayn doona row cusub isagana waxaan ku qori doonaa row 4 ayaan ku qori doonaa qaabkaasina waa qaabka loo soo geliyo rowga sida loo soo geliyo waxaana ugu xigaa qodobka ugu dambeeya merge and center waa sida la isugu furo bartanka marka qoraalkaaga hadda doonayso halkaas oo kale inaad ciwaan ka dhigto markaas rowga 1 iyo 2 iyo 3 ay ku qoran yihiin ayaan doonayaa inaan ka dhigo ciwaankii casharka inaan ka dhigo marka waxaan doonayaa inaan isku furo dhammaantood oo hal box ka dhigo waad select gareyn doontaa dabeetana waxaad dooran doontaa layout halkan waxaad ku dhufan doontaa merge cells-ka dhammaantood isku fur baan odhan doonaa way isu wada furmeen qoraalkan meesha waan ka saari doonaa marka wuxuu noqon doonaa marka cells isku wada furan hal box buu noqon doonaa marka halkaa waxaan ku qorin doonaa inserting tables marka ciwaankii oo kale ayaad ku dhufan doontaa marka haddaad doonayso marka insert inaad center ka dhigtana waxaad ku dhufan doontaa calaamada centerta ayaad ku dhufan doontaa marar badan bay dhacdaa inaad aragtaan tables noocaas oo kale ciwaanku halkaa ku samaysan yahay haddii aad doonayso inaad laba u qaybiso oo kanaad laba u qaybisana waxaad ku dhufan doontaa split cellskan laba iga dhig marka waxaan doonayaa number of columns inaan laba ka dhigo rowskana mid kaliya inaan u daayo marka laba ayuu igu qaybinaya halkaa waxaa la dhahdaa cellska sida loo qaybsado ama cellska sidaad u qaybinayso sidoo kale halkan waxaan samayn karaa tablekan laba igu kala jar split tableka lagu kala go marka halkan waxay iga samaysmi doonaa saad arkaysaan laba table oo cusub ayaa iga samaysmi doonaa halkan marka table hore oo tablekayga hore un baan laba u kala jaray haddii aan doonayo bogoska inaan imaka laba u kala jarana cellska yar haddaan doonayo laba inaan 3 ka dhigo marka halkan split cells baan odhan doonaa dabeetana waxaan odhan doonaa halka haddana laba iga sii dhig marka saasuu igu sii jarjarayaa uu isii yareynaya marka cashirkeenu maanta intaasuu ku saabsanaa casharo kalena insha allahu tacaala waan qaadan doonaa qaybta design tabka ayaynu qaadan doonaa maalinta dambana insha allahu tacaala casharadii horena waxaan rajeynaya in la daawaday ardayda aan daawana waxaan leeyahay mar walba waqtigeena ka faa'iidaysta oo daawada insha allahu tacaala aad iyo aad baan idin salaamaya.